baahannahay in si cad ama furan looga wada hadlo arrimaha amniga doorashada. waxaan ognahay hay'adaha amniga ee dowladda sanadii la soo dhaafay waxay ahaayeen hay'ado dana siyaasadeed u adeega madaxda dowladda ay adeegsato khaasatan taliska nabad sugidda. sidaas daraaddeed waxaan rabnaa halkan inaan ka dalbano in lagu sameeyo dib u habeyn taliska nabad sugidda. madaxweynaha haddii uu tanaasulay wuxuu tanaasulay hadduu ka tanaasulay waa extensionkii iyo muddo kororsigii tanaasulkiisa waxaa tilmaam u ah caddeyn u ah inuu dib u habeyn ku sameeyo inta ka dhiman mandatekiisa hay'adda nabad sugidda iyo taliska nabad sugidda oo caadaystay inuu ku dhex milmo siyaasadda oo ay tallaab ka gudi waayeen ka shiri waayeen saxaafaddii ka dhawaaqi weysay siyaasiyiintii ka dhawaaqi waayeen markii loo isticmaalay inay tahay hay-ad siyaasadeed ay noqotay shaqadii loogu talagalay la dagaalanka argagixisadana ay gabtay. sidaas daraaddeed madaxweynaha hadduu daacad yahay aan tilmaamaha aan ka sugayno waxaa ka mid ah oo tallaabooyinkiis tanaasulka u ah caddayn inuu taliska nabad sugidda dib u habeyn ku sameeyo xilka iyo mas-uuliyaddana dad professional ah oo karti iyo aqoon u leh kana dhexdhexaad loo ah dadka siyaasiyiinta inuu geeyo. taas ayaa tilmaam u ah in haddii uu daacad ka yahay waxa uu sheegay.